السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي soo dhawaada maanta waxaan u qaadan doonaa cashar cusub oo ku saabsan wada sheekaysi ama shukaansi aynu qaadan doonaa marka I think I'm in love with her I think I'm in love with her I think I'm in love with her waxaan u malaynayaa inaan iyada jecelahay I think I'm in love with her waxaan u malaynayaa inaan iyada jecelahay I met this girl last week. Gabadhan waxaan la kulmay weekii hore. I met this girl last week. Gabadhan waxaan la kulmay weekii hore. We have been talking on the phone every night. Waxaan ku wada hadlaynay telefoonka habeen walba. We have been talking on the phone every night. Waxaan ku wada hadlaynay telefoonka habeen walba. I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. waxaan u malaynaya inuu jacayl igu dhacayo. I think I'm falling in love. waxaan u malaynayaa inuu jacayl igu dhacayo. I am crazy about her. aad baan ugu waalanahay. I am crazy about her. aad baan ugu waalanahay. What do you think I should do? waxay kula tahay inaan sameeyo. What do you think I should do? waxay kula tahay inaan sameeyo. What do you think I should do? waxay kula tahay inaan sameeyo. When was your first love? goormuu ahaa jacaylkaaga ugu horreeyay? When was your first love? goormuu ahaa jacaylkaaga ugu horreeyay? When was your first love? goormuu ahaa jacaylkaaga ugu horreeyay? I'm fall in love with first time in high school. I fell in love with first time in high school. I fell in love for the first time in high school. We only dated for 3 months. I fell in love for the first time in school. markii ugu horreysay waxa ugu dhaca waxay ahayd schoolkaygii. I fell in love for the first time in high school. wuxuu ahaa markii ugu horreysay waxa igu dhacay schoolkaygii markaan ahaa xilligii schoolka. We only dated for 3 months. waxaan wada soconay maxay 3 bilood. We only dated for 3 months. waxaan wada soconay maxay 3 bilood. We only dated for 3 months. waxaan wada soconay maxay 3 bilood. But I had strongest feeling for her. I had strongest feeling for her. waxaan u hayay jacaylka ugu adag iyada. I had the strongest feeling of her. waxaan u hayay jacaylka ugu adag iyada. My first love was insane. jacaylkii ugu horreeyay wuxuu ahaa mid waali ah. My first love was insane. jacaylkii ugu horreeyay wuxuu ahaa mid waali ah. But it is over now. hadda waa dhammaad. But it is over now. hadda way dhammaad. But it is over now. hadda way dhammaad. My second love was in college. jacaylkayga labaad wuxuu ahaa markaan college-ka galay. My second love was in college. jacaylkayga labaad wuxuu ahaa markaan college-ka ku jiray. We were together for 2 years. 2 sano ayaan wada sheekaysanaynay. We were together for 2 years. waxaan wada sheekaysanaynay 2 sano. We were together for 2 years. waxaan wada sheekaysanaynay 2 sano. I love her a lot. aad baan u jeclaa. I love her a lot. aad baan u jeclaa. We ended up getting married. waxaan ku dhammaanay inaan isguursano. wuxuu noogu dhammaaday inaan isguursano. We ended up getting married. wuxuu noogu dhammaaday guur. We ended up getting married. wuxuu noogu dhammaaday guur. How was your second love like? siduu ahaa jacaylkaaga labaad? ka waran jacaylkaaga labaad. How was your second love like? siduu ahaa jacaylkaagii labaad? nooga war. My second love experience was so powerful. jacaylkaygii labaad waayo-aragnimadiisu waxay mid awood badan. waa mid awood badan. waa so powerful. waa mid awood badan.
my second love experience was so powerful. Waa mid awood badan. It drove me crazy. Waxay ka dhigtay mid waaliya. It drove me crazy. Waxay ka dhigtay mid waaliya. I don't know if I could handle it again. Ma garan karo inaan mar kale aan samayn doono taas. I don't know if I could handle it again. Inaan mar labaad aan taas samayn karo. Ma garan karo. It drove me crazy. Waxay ka dhigtay mid waaliya. I don't know if I could handle it again. Inaan mar kale samayn karo. But it was definitely amazing experience. Laakiin waxay xaqiiqatan mid waayo-aragnimo cajiiba leh. But it was definitely an amazing experience. Waxay xaqiiqatan mid waayo-aragnimo cajiiba leh. But it was definitely an amazing experience. Waxay ahayd mid waayo-aragnimo cajiiba leh. My second love can be described like romantic fairy tale. Jacaylkayga labada waxa loo qeexi karaa inuu ahaa mid sheeko cajiiba oo ahayd sheeko dhab ah ama daacada. Waxay ahayd mid romantic fairy tale, sheeko romantic ah oo daacada. My second love can be described like a romantic fairy tale. I was speaking promise into her ear. Waxaan dhegta ugu sheegi jiray hadallo gabayo. I was speaking promise into her ear.